magaalada balcad la yiraahdo ee ku taala koonfurta muqdisho ku taala marka laga baxo magaalada muqdisho waqooyigeeda la sii aado muqdisho marka ka baxay itijaaha jugraafiga ahaan aadid waqooyi waxay u jirtaa 29 kilomitir ama 30 kilomitir 29 kilomitir tiraad waa magaalada afkeeda ayaa joogtaa oo soo gasho almost waa soo gasho magaaladii balcad waxaa la oran jiray shan magac ayay soo martay waa magaalo yar oo aad u taariikh fog taariikhdeedu ma dhawa taariikhdeedu waxay xiriir la lahayd magaalada yar waxay xiriir la lahayd magaaladii la oran jiray Serabion waa magac Soomaali horta hal la yaabin waa seero biyo iyo on oo la israaciyay bal israaci seero biyo iyo on seero waxa la yiraahdaa xuduud baa la yiraahdaa waa af Soomaali baro yarow baro yaray baro gabarhay baro wiiliyow baro seero haddaad maqashid seerada waa xuduudda seerada beeraha seerada xoolaha seerada marka seero waxa la yiraahdaa xuduudii biyaha macaaneed way macnihi Serabion magaalada waxa la oran jiray muqdisho bay ahayd muqdisho ka hor ayaa la oran jiray Serabion 1313 baa la oran jiray waxay xiriir la lahayd waqooyiga iyo galbeedka Afrika ay xiriir la lahayd magaaladaas sidaas la mid ah hadaba magaalada balcadna xiriirkaas wuu jiray waqooyiga iyo galbeedka Afrika saxaraha dadka la adoonsada ee Afrikadaas laga soo qabta baa waxa la keeni jiray laba suuq oo waaweyn oo ku kala yaala magaalada muqdisho iminka aad u garanaysaan ee bariga la oran jiray Serabion iyo magaalada la yiraahdo balcad hadaba barigaas dadka la adoonsada la keena dadkan la adoonsada barigaas la keena waxa la oran jiray magaaladii shanta kulan Soomaalidu waxay u taqaanaa geedo waaweyn ee la yiraahdo shanta kulan ay ahayd shanti kulan ayadoo ayaa waxa la keeni jiray dadkaasi muqdisho laga soo kaxeeyay ayaa misna suuqan kale la keeni jiray lagu kala iibsan jiray yaa kala gadanaya yaa gadaya Soomaalidu talow ku jirtay dadka la gadanaya waa maya Soomaali abidkeed lama gadan abidkeedna lama adoonsan wadad aad u waaweyn oo kibir badan qabka hadda meeshaas ilaa waygaas uu jiray ugu qabbalada ano Soomaaliya wallahi ka yeel ya marka qabka uu jiray shanta kulan baa la oran jiray shanta kulan xilli baa ka soo wareegatay waxa loo bixiyay hadda magaalada balcad baan joognaa ugu buur bishaaro baa hadana loo bixiyay magac la yiraahdo buur bishaaro waa goorma waa 1903 1902 1905 ilaa iyo 1900 buur bishaaro baa la oran jiray waxa soo degay nin la oran jiray boqor miniligi labaad ee Ethiopia baa soo degay buur bishaaro meesha uu soo degay waxay ahayd waa halka iminka ku taalo warshada dharka ee balcad halka ku taalo ayuu soo degay buur bishaaro muxuu yiri ma garanaysaa anaa iska yiri halkan anaa iska leh buu yiri waxay ahaataba taariikhdu way fogtahay si xasan barsane oo la soo dagaalamay qolooyinka deegaanka dega anigu macallin baan ahay qabiil magaciisa ma doonayo inaan ka sheego waayo macallinku qabiilku waxa weeye qarannimada ayaa kala weyn macallimiinta kale waa ku boorinaya magaca saddexaad wuxuu ahaa Taytayley waa magaaladii boor ka badneed Taytayley Koyame iyo balcad Koyame marka xilligii waxa loo bixiyay weli gumaysigii socday dadkii la kala iibsan jiray socday
shanta kulan la oran jiray ayaa haddana kooyaame ayay u baxday. Kooyaame waa erey raxweyn ah, kooy aam kaalayo cun, kaalay cun. qaybta kale ayaan maartay insha Allah aan ku dhamaystiri doonaa. waa buur bishaaro, shanta kulan, kooyaame, taytayli iyo balcad.